halka gunud wixii dhacay xogga baro ayamaha xaajada timaada بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan aad iyo aad u salaamayaa walaalaha qaaliga oo mar kale isku soo noqdaba oo xiiso leh waxa aan soo dhaweynayaa asxaabtii hore qalbi furan leeyahay hanaga caajisana asxaabta cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta arki doonta clipkana waxaan ka codsadaa subscribe like share comment waxa ii dhiirigelin haddii hore aad aan subscribe kugu ahaana markastoo kusoo gaaro videogaygaasi like ta saaran caawa maxaan ka hadli doonaa insha Allah biidhnillah waa mar kale iyo barnaamij kale caawa insha Allah waxaan ka hadli doonaa gabadha qabsatay social media Esther Kulibaax oo ku nool magaalada Nairobi iyada iyo waxa isqabsaday wiil oo aan la isu teela dhiganaynin wax kastana la iska sheegayaa mid labaad inta aynan inagu fikirkeena aynan ka hadlin Esther maxaa tiri xabiibti balaynu dhageysana Esther waxay tiri heer wuxuu gaaray maxaa la jiri baadiyada dhooleeya u soo gaday foodleeyda ma ay haysteen inuu sex ku qoro oo ilmaha qolkooda ku dhex daawado gabdhii dhaxdooda ku dhex daawanaya sex intuu baadiyada ku qoray soo ugu qoraa bari ka maalin maxaa ka suurtooba ani ilmaha ana hooyo abo dhibki bari ilmaha soo gaar ana way soo gaareen dhinac walba inaan ka dagaalamo waa saas ay taayna waxaan suubiyay kulligooda iskugu wada wacay wixii guriga joogo dhan kulli 10 wiil baa guriga joogto maxaa kaliya guriga maxaa loo Esther waxaan ku leeyahay walaashi qaaliya anagu markasta waxaan barnaamijkeega kusoo gudbiyaa waa wacyigelintana in la isbaraarujiyana waynu baahanahay wax yar baan jecelahay inaan kuu iftiimiyo aniga oon ku dhibaateynaynin kuna caayeenin marka koobaad waxaa tahay qof muslima ilaahay xikmad buu ku abuuray xikmad ayaaba ku abuuray sida quraankeena ilaahay ku yiri wama khalaqatul jinna wal insi illa liya'budun jinka iyo insigaba waxaan u abuurtay in ay ilaahay caabudaan laba xikmada lagu abuuray horta waa taa marka kale walaasha qaaliye marka aad ilaahay ku abuuray ee aad insaan tahay yar oo daciifa markii uu ilaahay ku abuuray wuxuu ku soo raaciyay waxaad maqashaan buug watay qasaaladu buug bay wadatay kookartu buug bay wadatay gaarigu buuggiisii mee waxyaabahaas oo dhan dadka reer galbeedkii markay wax soo sameynayaan waxay soo raacsadaan buug la akhrinayo oo wadadii loo maray lahaa waxaan ay sameeyeen adiga haddaba oo insaan yar oo daciif ah Allah wuxuu ku soo raaciyay kitaabka Quraanka Kariimka ah haddii aad dawaqto haddii aad wareerto haddii aad adduulaan kugu dhacdo haddii ubadlaan kugu dhaco haddii mar wax kasta noloshaada lifekii oo dhan sidaad u noolaan lahayd oo dhan waxay ku qoran yahay kitaabka Quraanka intaan ka soo gudubno waxaa tiri waxaa gurigayga deganaa isagoo quran maaha waxaa deganaa niman badan ma ogtay walaashi qaaliye inay raggan badan ee guriga ku soo xareysatay ajnabi ka yihiin ajnabi inay ka yihiin shaydaan iyo nafina ay walaala yihiin marka nin ajnabi ka ah oo ku gaya oo ku gureyn kara oo ku faraxumeyn kara oo adig iyo caruurtaadaba idin dhibaateyn kara markaad guriga soo gashatay waxa aad imanka fiiriyowga ku soo sheegtay iyo ka badanba inay kaala kulmayaan maskaxdaada iyo maankaaga ku hay markan aad raggii adduunka joogay 10 waa aad bay u badan yihiin tiro badan markaad guriga soo galinaysay ee ay kula degayeen waan iska garanaynaa nolosha Nairobi way adag tahay guryaheedu waa qaali waynu fahmi karnaa laakiin ma og tahay taacakiskeeda inaad heli karto laba wadaba ay ku banaanayd labada wadee ku banaanayd ay ahayd hadda aydan bixin kareynin oo aad lacagta awood u lahayn guriga weyn aad ku kireysatay inaad heli karto qol iyo fadhi adig iyo awlaadaada idinku filan waa midda koobaad midda labaad ma og tahay in ay buuxaan hablo dhan oo wada salbateera oo wada shaqaysta oo sidaadaas oo hablo ah oo subaxiina kaa kala hay habeenkiina ku soo galaya haddaad lacala u baahatay inaad cid ka kirayso kuwaasiba way buuxaan waa midda labaad maaha Soomaaliya waxay tiraahdaa hal xaraani nirig xalaalo ma dhasho markan aad ku heshiiseen qalad marka aad ku heshiisaan
labadii xaq darro ku heshiisa xaqay ku culowdaa markii nin hore waxaa iskiin baray qalad uu ahaa adigoo nin iyo gabadh aad kala tihiin haddana dadku inay isbartaan maxme ee markii aad dhex gasheen ee sidii nin iyo naag isqaba aad fiiriyoyo iska soo duubteen idinkoo is haysta taasina qalad kale ay ahayd midda kale waxaaba lagaa xaaraantinimeeyey adigu hooyaabatay maamaa tahay wiilashuna waa ciyaal waa dhalinyaro wax kasta waa ka suuroowaa dhalinyarada caqligooda inaad adigu ahaato ayaabay ahayd laakiin maalin walba walaalay marka aad wiil isku soo sawirtod 10kaas aad guriga soo dejisatayba aad soo bahalaysato horta waxaad cabataaba waa qalad sida uu alla ku yiri u noolow wiilkana mid baynu odhanaynaa inta aynan midka odhan isagana bal ila eega fiidiyogiisa muxuu isaguna ka yiri just aan hooyaan ka dhigin jiray qaxooti markay joogtaan way baahneed because qaxooti cid garab siina ma lahan social media cid garab isku siina ma lahan laakiin waan garab taagnaa soomana garanin halka markay keentana suxun bay la dhaqmatay mid xigtana reerkeedana runtii marka inii sheego wuxuu ku burbur waxay tahay ninka ragga dartiisa Soomaaliya aniga naagta aniga xaliije dabcan iga ma galin weligii abba iyo hooyo mooyaane wax kale tuma dhihi jirin shukaansi iska badaa marwaba aan garabkeen ka fiilin jirin laakiin aniga waxaan ogaa inay igu shaqeysan jirtay igu jisaari jirtay laakiin Soomaaliya anan damac iga ma galo damacan iga ma galaayo caruurteedana ee la qadar u dhex saaxanayna wali ilmaan qolka ma dhex saaxanin nimin baan ani caruur gabdho yar yar oo 8 jir qolka maxay siixinaya fadhiga arkaya qolka la arkaya Soomaa maxay siixinaya idinkuna wad arkaysan wiilkiina waxa aan ku leeyahay adigana marka aad nin tahay ee aad wiil tahay horta qalad waxaaba intii aan anigu istir kurli wax ka soo sheegay intaba adigana waa tahay dadku waxay yiraahdaan dhalinyaro waa dhalinyaro sidii loo lahaa ma garanaysaa waa dhalinyaro qalad kastaba duldhuq ma ogtahay shabaab ilaahay caabuday inuu yahay 7 dilka alle harsanaya 7 dilka alle ama harka alle harsada inuu kamid yahay shabaab ku dhameystay noloshiisii inuu ilaahay caabudo waxay yiraahdaan markaan dhalinyaranahay waxaan doonaa sameeynaa dhalinyaro markaan waxaan doonaa sameeynaa marka 60 iyo 50 gaanaan xashka tagayna ma ogtay inaad noolaanayso 50 sano iyo 60 sano waa u simantihiin wadka laakiin adiga marka aad nin tahay ee rijaal tahay waxa aan ka suurto waxa aan kaas walaasha oo 10 nin la degan tahay 10 nin la degan tahay wad ka xumaan lahayd waxa doonay walaalay waxaan oo raga maxaa ku dul dhigay hooyada oo garooba oo 10 nin la degan tahay markaad aragto waxa doonay waxaan oo raga maxay yihiin miyad weyday dumar su'aalaad weydiin lahayd walaasha oo fiidiyowga social media maalin kastaba nin adiga oo kala ah nin adiga kula daa maalin kastaba ceebaheeda ku soo bandhigaya social media-hana sidee dareemi lahayd haddaba waxa aan ku leeyahay waad isdhex gasheen walaalaad noqotay wixii kale idinka dhex dhacay Allahu a'lam cuntaad wada cunteen sida aad sheegisaan guriyaad wada degteen fiidiyowyaad isku soo duubi jirteen idinkoo sidii maska saa iskugu marana waan idin arki jirnay ma waxa aad garan weyday ma waxa kuu muuqday oo aad jeclaatay inaad walaasha ku kala kacsato ama fiidiyowga views badan aad ku hesho haddaba haddii aabay dhacday inaad isqabataan carab iyo labadiisa daan way isqoonsadaane garashadaada iyo ninimadaadu miyay ku siin weyday inaad afkaaga laba leero saarato oo tiraahdo walaasha wixii na soo dhexmaray wayna soo dhexmareen wixii aan isku qabanay waan isku qabanay ciishkan wada cunaynay waan wada cunay meelahan wada maraynay waan wada marnay macsiyahan wada sameeynay waan wada sameeynay wixii naga wada dhacay oo dhan astaghfirullah laakiin aniga waxa ay iga mamnuuca in aan ceebaheeda iyo wixii na dhexmaray iyo wixii aan is arag iyo wixii aan ku arkay iyo qaladaadkeedii inaan social media soo bandhigo ilaahay wuxuu yiri qofkii hal ceebo walaalkii astura waxaan u asturayaa 10 ceebood oo uu leeyahay waxaan idin leeyahay hunguri
waa hunguri inaad dhammaysan oo carfan waxa aad tabcanaysana allahu aclam ma garan kartid adoo hadlaya inay neeftan yare aad isla waalwaalaysaa kaa socotana way dhici kartaa laakiin waxa aan ku leeyahay mar dambe gabadh walaasha ah mar dambe gabadh hooyada ayoo kale ah wiilkeeda iyo wiilkan way isleegi wiilka ay dhashay inantani iyo inankana waa isleegyihiin hooyada ayoo kale aad u ixtiraami lahayd walaasha ayoo kale aad u ixtiraami lahayd waxaasoo dhan baad u ixtiraami lahayd waxaan idin leeyahay biliis and biliis mar dambe ciibihiina ha soo dhigana social mediaha waxaan idinkaga tagaa walaashiina idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu